munaasabadaadu ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Shira Jaamac Axmed ayaa maanta waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin fara badan oo ay kamid ahaayeen xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka meergalka ee Soomaaliya xubno ka tirsan maamulka culimada u diinka Ahlu Sunna wal Jaamaca qurbajoog ku sugan degmada Cawdo oo ka soo jeeda waqooyiga gobolka Galgaduud odayaasha guurtada dhaqanka ee degmada Cawdo waalidiinta ardayda dugsigan iyo dadweyne aad u fara badan munaasabada xafladan oo ahay mid aan loo kala harin ayaa waxa ujeedadooda ah qodobo dhowr oo ay kamid ahaayeen ugu horeyn ba sare u qaadista iyo kobcinta heerka tayada waxbarashada ee waqooyiga gobolka Galgaduud magaca iskoolka oo la oran jiray Al-Ma'muum kaas oo iminka loo bixiyay Shira Jaamac Axmed oo ah ninkii u soo halgamay isla markaana sameeyay qoraalka farta Soomaaliga oo iskoolkani maanta magaciisa loo bixiyay waxaana halkaas maanta lagu soo bandhigay khudbado kala gedisan oo ay soo bandhigeen mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay xafladaasi iyo sidoo kale ardayda wax ka baranaysa dugsigaasi oo soo bandhigay ayaguna lagtaro geeraro iyo waliba halkudhigyo kala gedisan waxaana halkaas khudbado ka soo jeediyay mas'uuliyiin ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka xukuumadda dowladda ku-meelgaarka ee Soomaaliya oo ay kamid ahaayeen General Cabdirasaaq Isaaq Biixi oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Cawdo maamulka culimada u diinka Ahlu Sunna wal Jaamaca Xasan Cabdi Calas ugaaska beesha Cawdo ugaas Axmed Barra Cali iyo sidoo kale mas'uuliyiin fara badan waxaa la sheegay aqoon la'aan in ay tahay iftiin la'aan adduunka taala aqoontana in lagu dadaalaa ay xaq tahay waxbarashada qof kastaaba in lagu dadaalo ilmaha loogu dadaalo macallimiintu siday u hadashay waalidiintu haddii aysan ilmaha agaasinkooda iyo kicintooda iyo dhaqaalahooda intaas aysan ku dadaalin hadda macallimiinta waxbarashadooda wax dhan baa ka maqan waxyaalaha maamulka dugsiga Shira Jaamac ay noo sheegeen ama codsadeen waalidiinta ka codsadeen ama ciddii kale gacan ka geysan kartay facadkooda waxyaalaha u socono weye inaan ogaano meelaha bulshada iyo deegaanadan hadda aan marayno aad ugu baahan gacanaysi annagu waa noqonaynaa waxaan rajaynaynaa inay jiraan jaanisyo ama opportunity meeshii nabada looga faa'iideyn karo waxaan dadaalaynaa waan dawgelaynaa haddii aad yidhaahdo xafladan oo ahay mid aad u qurux badan isla markaana dadku ay ka muujinayaan farxad iyo hididilo aad u ballaaran jawi farxadeed oo si weyn loo soo agaasimay waxaana guud ahaan mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay xafladaasi ay isku qoreen dhaqaale aad u fara badan oo gaaraya ilaa $5,000 loogu talagalay in lagu qalabeeyo oo dib habeen loogu sameeyo iskoolkani ayuu dadkii meesha joogayna qof walba isku qoray lacag ay u yartahay $200 si iskoolkaasi wax loogu qabto oo lagu sameeyo dib habeen waana markii ugu horeysay munaasabad noocan oo kale ah ee waxbarashada looga hadlayo ay ka soo qayb galaan mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda dowladda federaalka meergalka ee Soomaaliya tan iyo intii la sameeyay xukuumadda dowladani iyo sidoo kale xaflad noocan oo kale ay isku yimaadaan mas'uuliyiin noocan oo kale ah oo ka socda dhinacyo kala gedisan